Waxaad leedahay riyooyin, waxaad rabtaa inaad noloshaada beddesho, laakiin ma dhaqaaqdid. Maalin walba waxaad leedahay berri ayaan bilaabayaa, laakiin berigaas weligiis ma imaanayo. Ma caajis baa mise wax kale ayaa kaa qaldan? Dad badan waxay is yiraahdaan aniga caajis ayaan ahay, laakiin runtu waa inta badan ma tihid caajis. Waxaad ku jirtaa xaalad maskaxeed oo kaa dhigaysa inaad waxba aadan qaban karin. Waxaad rabtaa inaad horumar sameydo, laakiin waxaad dareemaysaa culays. Taasi waa dhibaatada dhabta ah. Maanta waxaynu halkan kaga falanqeynaynaa waxyaalaha nagu keenaya inaynu waxba qabanin nolosheena, oo naga hor istaagsan inaan horumarno, isbeddel sameyno, nolosheena aan wax badan qabsano. Qodobka koowaad: dopamine overloading. Maskaxdaadu waxay la qabsatay farxad degdeg ah. TikTok, YouTube, social mediahan markaad 3 saacadood ama 5 saacadood aad ku bixiso telefoonkaaga, maskaxdaadu waxay rabtaa wax fudud oo wax walba degdeg ah oo aad mar walba daawanaysid. Waxay keensanaysaa in maskaxdaada ay la qabsato. Maskaxda waxay soo deysaa dopamine. Dopamine-kaasna wuxuu keensadaa mar walba waxyaalaha farxadda ku gelinayo oo degdega ah inaad maskaxdaada la qabsato. Dareenkaas ayaana keensanaya hadhow inaadan waxba dhab aadan u qaban karin. Wax kastoo reality ahna waxay kugu noqonayaan wax adag. Taasi waxaad u moodi doontaa inaad caajis badan tahay, waxba aadan qaban karin. Markaad rabto inaad wax muhiim ah qabato, sida waxbarasho, xirfad cusub, jimicsi iyo waxyaalaha noloshaada muhiimka u ah inaad qabsatid. Ha ahaato inaad muuqaal dheer daawatid, ha ahaato inaad koorsooyin aad baratid, waxay u muuqdaa markaad bilowdid culays. Sababtan wax kale maahan, maskaxdaada waxay la qabsatay degdega iyo waxyaalo fudud. Kaliya gacanta ku wareeji telefoonka, scroll garee, maskaxdaada midaas ayay la qabsatay. Qodobka labaad: xabsida qarsoon. Mararka qaar ma tihid caajis, waxaad ka baqaysaa inaad fashilanto, wax dadka kaa dhihi doonaan, inaad isku daydo oo aad guul dareysato. Marka maskaxdaada waxay doorataa ha bilaabin si aadan u fashilmin. Taasi waxay kuu muuqataa caajis, laakiin dhab ahaantii waa cabsi. Cabsida aan ka qabno inaan isbeddelno, cabsida aan ka qabno inaan horumar sameyno, cabsida aan ka qabno in dadka wax naga dhihi doonaan. Laakiin haddaad doonaysid inaad guulaysatid, waxaa u baahan tahay inaadan ka fikirin waxa dadka ay kaa dhihi doonaan, inaadan ka fikirin fashilka, inaadan ka cabsanin wax kastoo ka hor istaagi karo horumarkaaga. Kaliya bilow, Ilaahay u tala saaro. Qof kastoo dadaalo ugu dambeyn waa uu gaaraa natiijada uu doono. Ka fogow cabsida. Waxyaalo badan oo waxaa jiraan aan ka cabsano, laakiin dhab ahaantii markaynu u barbar dhigno oo aan ka hortagno, aan dadaal sameyno, isku dayno, waxay noqdaan waxyaalo aan laga cabsanin. Xataa naftaada ayaad ku qosli doontaa, waxaad dhihi doontaa waxaan lagamaba cabsan karin. Sababtaan uga cabsan jirin maxay tahay? Qodobka saddexaad: qorshe la'aan. Haddii hadafkaagu weyn yahay laakiin aadan kala jebin, maskaxdaadu way ka baqaysaa. Tusaale, waxaan rabaa inaan guuleysto. Waa wax weyn, laakiin haddaan sameeyo maalintii inaan 1 saacadood aan wax nolosheyda horumarin kara aan barto, waqti geliyo, maalin walbana aan ku celceliyo, ugu dambeyn waxay noqonaysaa wax aan ku guuleysto oo nolosheydan aan ku horumariyo. Iimaankaaga ayaa door weyn ka ciyaara. Markaad ka fogaatid Allah subxaanahu wa tacaala, waxaad dareemaysaa tamar la'aan, culays. Laakiin markaad Allah ku xirnaatid, waxaad heli doontaa xoog gudahaaga ah oo wax walba waad isku dayi doontaa, wax walba waa ku dadaali doontaa, waqti ayaana gelin doontaa. Iimaankeenana waa inuu muhiim inaynu ku dadaalno. Sameyso qorshe iyo hadaf. Hadafkaasna ha kuu caddaado. Hadafkana ka dhigo inaad step aad u mari doontid oo aadan hayaacado aadan ka dhigin. Waxaad rabtaa inaad guulaysatid, waa inaad sameysaa step. Sheygan guusha maxaa iga gaarsiin kara? Waa inaad qortaa, kadibna aad stebyadaas aad u raacdaa. Tusaale, waxaan rabaa inaan xirfad barto, xirfadaasna aan ku guuleysto. Maxaan u baahanahay? Waxaan u baahanahay inaan xirfadaasi waxyaalihii iga saacideeyo inaan soo diyaarsado. Haddii ahaato computer, haddii ahaato waxyaalaha aan u baahanaa karo. Nextina inaan time blocking aan u sameeyo xirfadaas 1 saac ama 2 saacadood oo aanan meel kale la fiirinin, oo aan meel kale aanan la aadayn, aan wax kale lagu mashquulin, telefoon aanan la daawanin, kaliya focuska la saarayo 2 saacadood ee xirfad aad u goyday. Maalin walba 2 saacadood markaad xirfadaas aad laazintid, ugu dambeyn muddo dhowr bilood kadib waxaad noqonaysaa qof professional ah, xirfadaasina
ay u tahay lambar 1 hadafka iyo rajada aad ka leedahayna waad ka gaari doontaa xirfadaas. Marka wax walba waxay u baahan yihiin inaad waqti siisid. Hadafka aad markuu ku cad yahay qorshe ayuu u baahan yahay, next ofna stebyadaas inaad raacdid. Mar walbana Allah subxaanahu wa tacaala ku xirnow, guusha xaggaaga ayay noqon doontaa. Haddii aad rabto inaad ka baxdo caajiska, cabsida, walwalka, dopamiinka, waxaad u baahan tahay inaad telefoonka aad yaraysid isticmaalkiisa, inaad ka fogaatid waxyaalaha scrolling ah, oo aad noloshaada u beddeshid waxyaalo dhab ah oo reality ah. Ha ahaadaan muuqaalo dhaadheer oo laakiin wax fiican kugu soo kordhinaya, dokumentariyo, koorsooyin, inaad waxyaalahaas waqtigaaga gelisid inta ugu badan. Bilow tallaabooyin yaryar. Ha isku day inaad hal mar wax walba aad sameydid. Samee stebyo yaryar. 1 saacadood inaad wax baratid, 1 saacadood inaad maanta wax qabsatid oo horumar naftaada u samayn kara. Laakiin inaadan dhihin maanta kaliya ayaan xirfadda hal mar wada baranaya. Taasi waad ku problem karaysaa. Sameyso jadwal yaryar aad ku socotid. Hana ku caddaado hadafkaaga iyo meesha aad u socotid si aysan guusha aysan kuu seegin. Ka adkaaw cabsida. Ficil qaad. Talaabo hor u qaad. Xitaa marka aad cabsanaysid. Xitaa marka aad u malaysid inaad guul dareysanaysid. Ku xirnow Allah subxaanahu wa tacaala. Salaadaada laazim, ducadana badso. Noloshaadana way kuu hagaagaysaa. Wax walba aad u baahantahay adduunka kan. Maxaa yeelay Ilaah gacantiisa ayay wax walba ku jiraan. Anakana waxaana laga rabaa kaliya dadaalka inaan la nimaano. Isbeddelku wuxuu ka bilaabmaa ficil yaryar oo laakiin joogto ah. Mar walba aan joogteyno ficiladaas yaryar maalinlaha ah, nolosheena ayay hore u wadi doonaan. Haddii aad is leedahay waad caajis badan tahay, xusuusnow ma tihid caajis. Waxaad u baahan tahay nidaam sax ah. Bilow maanta xitaa 1 tallaabo. Noloshaada way isbedeli doontaa 100%. Muuqaalka like saar. Haddii wax ka anfacayna dadka asxaabtaada la wadaag, kuna soo biir channelkeena Mohan Osman. Mahadsanid.